وحسب دي شيء منه على لنا الواد ليس أنه وتركين واحد وسيع العلني إذا وادت كيني ديجان كيني سو دوالا ودعويناها ما نتودو في خير الله سي يعني يبغى تام بالله أو كلام كديارها هذا ما في عمودنا تشلا يا دو يريد لما كيبال كديري يبلا وانما نبض دو تكتين نبض خصيص عجمان أدبا تمرها ويسود وين نعيشيس كا من نمط جبلان سياسيين كا بدرتون كيو دور دوار جبلان waxaan u mahadcelinayaa gaar ahaan madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxda kale ee halkan nagu soo dhaweeyay waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay wadahadalkii dheeraa ee heshiiska ku soo gabagaboobay ee lagu xalinayay khilaafkii Jubbaland cid walba oo ka qayb qaadatay waan u mahadcelinayaa intaa kadib waxaan ugu baaqayaa dhammaan bahdii isbedel doonka ee aanu madaxda u ahayn ee na dirsatay go-aanka aanu soo gaadhnay inay taageeraan meel kastay joogaan inay taageeraan muxuu ahaayey go-aanka la gaadhay iyo heshiiska inay taageeraan hadduu alla yidhaaho waxaan ugu baaqayaa amase aan u mahadcelinayaa dhammaan madaxda Soomaaliyeed ee nagala qayb qaadatay heshiiskaasi inuu dhaco sida madaxweynaha Puntland
oo juhdi fara badan ku bixiyey. waxaan u mahad celinayaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliyeed dadaalka dheeraadka ay u bixiyeen deynta in la cafiyo, shidaalka in la beec geeyo, dadaalka iyo horumarka ay wadaan. waxaana ugu baaqayaa isla mar ahaanta inay taageeraan dadaalka faraha badan ee la bixiyey ee ku soo gabagaboobay heshiiska Jubbaland khilaafkii ka dhashay doorashadii 22 August. uma baahna inaan aad uga sii sheekeyno wixii soo dhacay siday wax ahaayeen, laakiin waxaynu ogeyn 8 bilood ama sanad ku dhawaadkii hadda la soo dhaafay Jubbaland iyo kala aragti duwanaantii ka dhalatay doorashadii halka ka dhacday. muddo dheer runtii caqabadeedu iska taagnayd, xal laga gaari waayey, isla mar ahaantaana jiitantay. intaasi marka ay dhacday lagama maarmaan noqotay in laga wada hadlo. waxaanu maanta idin wadnaa is-afgarad iyo tanaasulaad iyo heshiis dhab ah oo xaqiiqo ah oo runtii aan haba yaraatee wax u dambeeya oo laablaabay una jirin. waxaan rabnaa inaan u sheegno bulshada reer Jubbaland iyo ummadda Soomaaliyeed iyo cid kastoo danaynaysaba wejigii koowaad ee dib u heshiisiinta ayaa la soo sameeyey. qaybihii kale ee dib u heshiisiintana halkan iyo meelaha kale ee loo baahdo ayaa lagu qaban doonaa haddii alla yidhaahdo sida qorshuhu yahay. marka isbeddel laga shaqaynayo oo run ahaantii tiimka iyagii isbeddel doonka ahaa qorshaha aanu ku soconnay ahaa inaanu madaxtinimada la wareegno, laakiin wax kastaba xagga lay ka qoran yihiin in la isu samro, la isu dulqaato, tanaasulaad la sameeyo. xaaladdan maanta lagu jiro caalamkii oo dhan, walooyinkii xoogga isbidayey iyo kuwii tabarta yaraaba mid ka dhigay, adduunkii dhaqaalihiisii baabi'iyey, qof kastaba uu naftiisii meel kula jiro, qof salaamaya uuna jirin, qof waliba uu afka xidhay, qof qaraabo soo salaamaya uuna jirin, kii dhintay in la aasa ay adag tahay, way adag tahay inuu khilaaf sii jiro. isbeddel doon macnihiisu waxa weeye inuu isbeddel dhaco. isbeddelku hadduu dhici waayena go-aanka la qaadanayo laftirkiisa ee tanaasulaadka ayaa isbeddel ah. isbeddelku mar walba waa xanuun badan yahay, aad uu xanuun badan yahay. markaad go-aan qaadanayso ama aad ku guulayso ama ha ku guulaysanin, haddaad ku guul daraysato inaad ka noqotona waa xanuun badan yahay. mar walba xanuunkaas waxaa la rabaa in loo dulqaato oo loo adkaysto, laakiin wanaaggiisa iyo macaankiisa iyo dhadhankiisa dib ayaa laga arki doonaa. cid kastoo madax noqotaana waxay ka shaqaynaysaa danta qaranka iyo danta ummadda Soomaaliyeed iyo reer Jubbaland. waxaan rabaa marka isbeddel doon inay qaataan oo maxaan ku idhaahdaa fahmaan oo ay la yimaadaan ayagoo noqonaya dad maxaan ku idhaahdaa ka mida bulshadoodii aan lagu dhibaataynaynin ama lagu faquuqaynin isbeddel inay soo ahaayeen, laakiin lagu tixgelin doono. dowladda federaalka waxaan ugu baaqayaa, annagu dowladda federaalka dabcan aniguna waa ka mid ahay, dowlad goboleedkuna waa xubin ka mid a dowladda federaalka. meeshaan ma kala maaranto, Jubbaland iyo maxaan ku idhaha federaal ma kala maarmaan. waxaan rabnaa sidaan horeba u sheegnay qoraalkana ku qorayd in aynu horkacno innaga oo dhan in khilaafkaas meesha laga saaro, isfaham darradaas meesha laga saaro, lala yimaado beej cusub oo lagu wada shaqaynayo oo la isugu tanaasulayo. Jubbalandna ay la imanayso inay u nuglaanayso oo u dabacsanaanayso dowladda federaalka. baaqay ugu dambeeya aan u diraya beesha caalamka waxaan marka ugu horeysa uga mahad celinayaa taageeradii ay taageereen heshiiskii aanu ku soo gaarnay magaalada Nairobi. waxaan ugu baaqayaa inay sii laba jibaaraan, nagalana shaqeeyaan, nagalana qayb qaataan inaanu dhammaystirno
ee heshiiskaas hirgelinno ka shaqaysiinno gaadhsiinno bulshada qof kasta meesha uu joogo ku gaadhsiinno waxaan ku jiraa bishii ramadaan oo inoo bilaabatay oo bil khayr badan oad garanaysaan fadliga ay leedahay iyo waxa ay tahay dadka muslimiintaana inay bishaas xurmada leh soomaan iscafiyaan ka shaqeeyaan waa shahrulcibaada in laga shaqeeyo waa shay waajiba waad ogtiin bishaasi 3 qaybood weeyaan awaluhaa raxmad weeyaan waa kaad roobkii iyo naxariistii wax badan baa da-ay marka labaad waa maqfiro weeyaan waa 10ka dhexe 10ka saddexaadna waa cidqu min annaar oo naartaa laga xoreeyaa kuwii soo soomay ee ilaahay soo caabuday ee bishaas dadaalkaas soo muuji waxaa ilaahay ka baryaa inuu ilaahay naga dhigo kuwa naarta uu ka horeeyo taa markaan ka tago waxaan rabaa marka hore inaan soo dhaweeyo saaxiibaday isbedel doonka ahaa oo aan leeyahay ficlan waxaan soo gallay wadahadal dheer waadna ogtihiin oo Jubbaland dib u heshiisiin iyo nabadeyn iyadaa ku dhisan maalintii ay bilaabatay ilaa maanta waxay ku jirtaa soo dib u heshiisiin isu imaatin nabadeyn iyo dadka in la isku wado saaxiibaday xildhibaanka iyo Sheekh Daahir iyo ugaaskii oo naga maqnaayo arrimo yaryar xagga reerka u haray waxaan uga mahadcelinayay inta wakiilada ka ahaayeen siday u fakereen iyo dareenkooda waxa uu siiyey ay qaateen ee ahaa war maxaan ka shaqeynaa alla ilaah dhulkeennii aan dhisnoon u tala maaha axmedi loo tanaasulay maaha hebel iyo cali iyo cumar laakiin waxay u tanaasuleen ama ay ka hadleen ay tahay inay mujtamacoodii iyo baldantiisu waxay ku jirta sidoo hadda xildhibaan ka hadlay iyo sheekhu ay uga hadlayeen aad baan idiin soo dhaweynay inta ka dambaysa ka maqana ee iyo wakiilka ka ahaayeen iyo kuwana wakiilka ka ahayn kulligoodna waan soo wada dhaweynayna ruushuna way taalla qof walbana waan soo dhaweynayna waan la xaajoonaynaa xuquuqdan Jubbalandna waa loo simeeya waxaan u malaynayaa inta maanta joogtaaba nabad iyo waxay ku timid wadahadal dib u heshiisiin taana saasaan leeyahay waan uga mahadcelinayaa cid kasta oo nagala qayb qaadatay oo juhdi ku bixisay oo miisaan iyo culays u yeelatay in heshiiskani uu dhaco wadahadalkaana muddo badan soo jiray waxaan u mahadcelinayaa baarlamaanka Jubbaland waan u malaynayaa dhowr marxalo inay soo mareen mar walba ay lahaayeen bal haddana dib u heshiisiin baa lagu jiraya waqtiga hala kordhiyo dib ha loo dhigo waa wax oo masiyo ay leeyihiin wey iyagiyo guddoonkoodaba waan u mahadcelinayaa qof kastoo ku samreeyey arrintaa aanu ku jiray waxoo dhanna waxaa soo ururiyey waxaan u malaynayaa hadalkii saaxiibaday lahaayeen ee ahayd isbedel doonka iyo waxa laga rabo iyo sida ay tahay iyo waxay u qaateen iyo waxay u tanaasuleen intaba iyagaa sheegay waana soo dhaweynaynaa dadka nagala qayb qaateenna soo dhaweeyey ee kiiskaa nagala shaqeeyey oo siyaasiyiin badan ku jireen gaar ahaan Puntland oo aan odhan karo wax badan bay waxay ka ahayd inay qof walba xiriir gooni ah lala sameeyay inuu heshiiskaasi dhammaado iyo ciddii kale ka qayb qaadatay waan uga mahadcelinaynaa waan soo dhaweynaynaa cid marti kaa ma jirto haddii shalay markay wax jirjireen wax laysu yara qabqabay wixii uu iska dhammaaday sababtoo ah nimankii aan wax isku haynay inta badan laalagu kuuqinayo lalahaa waa kan xidig iyo seeraar iyo Sheekh Daahir iyo meesha jooga iyagii soo heshiinay marka cidda ka dambaysa ee hadda barnaamijkaas kusii jirtaan iyagana sidiisi leeg yaan u soo dhaweynaynaa markaan intaa ka gudbo waxaan rabaa laba xaaloo kale inaan ka hadlo mid waa dowladda federaalka ah maalin dhaweydna waan ka hadlay mar walba heshiis baan diyaarunahay iyo wadahadal dowladda federaalkii ha garata mas-uuliyadda ay leedahay saaran sideedaba haddii la idhaha laisla guriyo nina meel ma gaadhay waxaan diyaar u nahay wadahadal goob walba iyo meel walba inaan wada hadallo oo qof walba uu garto waajibaadka sharcigu siinayo lana isku ixtiraamo taasaa asala haddii laakiin ay noqoto maanta waxbaa la iska sheegi waxaa laga yaabaa in laga hadlo nimanka soo heshiiyey waxay aada u arkeen meelo badan lagu qoray qoys bay yihiin iyo meel bay soo Jubbaland cidda mucaaradka ahayd ee joogtay ee nala joogtay ee deganayd ee mucaaradka ahayd ee cid walba aqoonsanayd intaan hadda heshiinay inta kalena inta iyaga ka dambeeya wakiilka ka haya bay ahay dowladda federaalkii waxaan leeyahay ha qaadato roolka ay ku leedahay ee sharcigu siinaya ee waalidnimo ha u hoggaansanto inay isku daydo waddankan isku wadis buubay maanta Soomaaliya xaalad adag bay ku jirtaa mar adag bay sii maraysaa
doorashooyinka iyo waxa la gelaya iyo siyaasadahaas oo dhan waa wax u baahan in gacanta la isqabsado laga wada shaqeeyo annagu diyaar baan nahay waan soo dhaweyneynaa waxaan leenahay dowladdu ha timaado miiska wadahadalka ha timaado in la wada xaajoodo ha timaado qof waliba xaqa uu leeyahay inuu helo markaan intaa taa kaga gudbo waxaan rabaa cudurkan karoonaha viruskan inaan hadalka idhaaho cudurkani waa cudur dilaa-ah waa cudur aana garanayn meeshuu ka yimid ma wax gacanta lagu sameeyeyba ma cudur aafo oo qadarela ku timidba wuxuu doonaba ahaadee waa cudurkaas maalin walba dilaya intaas oo kun oo qof dowladihii ugu waaweynaa ee wax sheeganaya 2,000 3,000 kun oo qof ay u dhimanaysaa maxaad u malaynaysaan innaga marka cudurkaani daacuunka wuu ka khalis badan yahay saa daacuunka intaasoo qof ma dhibato waxaan u baahanay dadku waad ogtihiin dalley baan nahay waad ogtihiin dhibaatadii culeyskan haystiyo qalab yaraantanada waad ogtihiin dawada aan heli karna xataa isagoon dawo lahayn inaan xataa waxyaalihii daruuriyaadkee loo baanahay la way nagu adag tahay dadku markaa waxaan u baahanay asbaabta inay la yimaadaan ma aha in lagu marmarsiido waa qadar rabbihi war ilaahay ku kalsoonow wuxuu yidhi awrkaagana dabro ilaahayna tala saara rasuulka qofku inuu yidhaahdo ilaahay baan anu tala saaranaya waxaan ilaahay baa keenayo ilaahay adde ilaahay horta doqon ilaahay taqaana ha noqon cudurkaani waa waxyi waad ogtiin daacuunka yaa waxay islaamku jideeyey rasuulku waa kii qofka kaloora hadduu meel magaalo ka dhaco lama geli karo lagamana bixi karo cumar buu ahaa kii lahaa qadarta ilaahay baan u cararaynaa qadarta ilaahayna waan ka cararaynaa markii la yidhi magaalada daacuun baa ku jira lama geli karo daacuunkiya kan kaa daran waxaan rabnaa dadku inay yareeyaan isu imaatinka meelaha ay joogaan meelaha ay iskugu imanayaan makhaayadaha masaajidada meelaha kale ee fadhi kudirirkaa inay kulli la yareeyo oo cudurkan daraaddii aan la nimaadno asbaabtii mar haddaynaan haynin wax kaloo aan maanta talaal male oo dawo ma laha mar hadday intaasba tahay waxaa lagu yihi warafka xidho waxaa lagu yihi gacmaha dhaqo waxaa lagu yihi dadka kala fogaada waxaa la yihi yaan la isu imanin waxa intaa ka badana la samayn lahaa waama intaasi waa waajib way inugu tahay inaan intaa u qaadano masaajidada la xidho makhaayadaha sidii looga qaadan karo looga qaato hadday taasi dhici weyday waxaan rabnaa in la taxadaro midda labaad ma aha ceeb ma aha cudurkan qofkii dareema in la karantiila ceeb ma aha soomaalida waxay aada ceeb ugu taqaana hadda aidiska oo kale iyo maxaa loo waxaynayaa qofkii waxaa laleeyahy zinu ku dhacay soo maha hadduu xataa si kale ugu yimaado irbadba uu ku qaado warkan ceeb ma aha waa aafo samaawi oo socota oo jayna kasoo bilowday oo dadkii dhammaysay nooca markay tahay marka waxay u baahan tahay cudurkaani qofkii laga helay ee la yidhaahdo qofkaana laga helay inuu mujtamaca ka dhex baxo hadday noqoto reer inuu ku dhex jiro reerkaasoo dhan kulligii waa la karantiilaya ma aha ceeb waa wax xanuunka uu la yimid oo u baahan inaan ogaano oo garanno oon ku talagalno xanuunkaani waxa uu yahay dhibku keeni karay ma kari karayna maanta inay xabaan soomaalidu waxaan u maana dadka ugu dambeeyay noqon doonaan sababtoa waxaa ku yar inay hoggaansamaan waxaa ku yar inay qaataan cudurkaani asbaabaha loo marayo oo dhan aan ku talagalna markaa anaa ugu horeeya hadda madaxtooyada qof soo geli ma laha qofkii dan yeesha telefoon baa la siin waa la cabiri xaggaa la geyn faraha la iska dhaqi waxaan wada hadlayno siyaalo lagu wada hadlo masaafada la ilaaliyo meeshaa iyo meeshaa la kala tegi baan samaynaynaa laakiin sidii aynu u jiray habartay loo wada fadhiyey sidaa maaha inaan naf jeclahaanu ma naf jecli oo xabaddaa baan gelaya waan soconaya laakiin inaan aafo caama oo xabaddu hal qof iyo 2 qof bay inaga dilaysaay 100 qof 500 qof hal mar dhimanayso inaan galama danba inoogu jirto cudurkaasi sida uu yahay ha loo qaato ha hoggaansameen dadku qutur daruurigooda ha raadsadeen si nadaam ha ku raadsadeen dadka xataa suuqa jooga waa in la kala fogaado oo la iska ilaaliyo meelaha la isugu imanayo roobaa daay duufaano wata magaalooyin badan baa burburay hadda madhawo oo kale xalay u xaalufiyey kismaayo inta badan waxaa jiifa biyo dadkii danleydaha waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo cid kasta oo dadkan mujtamaca mas-uuliyada ka saaran tahay oo ka naxaysa maanta waxaa isugu darsamay duufaano cudurkii oo shaqo badan la geli karin rabadaan lagu jiro dadkaani wuxuu u baahan yahay gurmad in loo helo waxaan rabnaa dowlad soomaaliyeed beesha caalamka
cid kasta oo ganacsatada xoolaha haysata qof kasta oo maanta macaawino geysan karaay inuu u geysto dadkaas fatahaaduhu ku dhaceen rabadaantu u weheliso cudurkan u weheliyo ciriiriya badan ku jira maanta gurmad bay u baahan yihiin waxaan rabaa inaan gurbaaq caadi caalamiga jeedino oo aan u baahannahay gurmad degdega in lala soo gaadho dadkan gaar ahaan dadka jasiiradaha ku nooli waa dad shaqaday qabsadaana ay yartay kalluun tahay oo maanta suuq loo iibgeeyo Kenya una jirin way xayiran tahay waa dad beero iyo aan lahayn xoolo waa dad waxay ku noolaan intaa ahayd intiina maanta heelkaa taagan tahay iyo inta kale magaalooyinka fadhida dadkii hadda qaxootiga ka soo noqday iyo kuwii barakacayaasha ah ee gudaha ku barakacay intaba dhibaatadaasaa taagan baaqaas waxaan rabaa isagoo qoraalana waan diraynaa isagoo afana waan jeedinaynaa waxaan u baahannahay in dadkaas gurmad degdega lala soo gaaro